بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaa shir isugu yimid shaqaalaha wasaaradda caafimaadka, agaasimayaasha iyo agaasimayaasha brograamyada iyo shaqaalaha oo dhan ayaa isu yimid. waxaa xog guud maaragtay aan ku kala qaadanay dhibaatadii dhacday 29 Oktoobar iyo gurmudkii wasaaradda ay samaysay iyo guud ahaan guddiga gurmudka qaraxyadaas dadkii ku waxyeeloobay wasiirka wasaaradda uu ka ahaa guddoomiyaha wixii u qabsoomay iyo xogtii ugu dambeysay aan iska wareysanay. dhimashada guud qaraxyadaasi inta wasaaradda iyo guddiga gurmudka diiwaan geliyeen waxay ahayd 121. dhaawacyada guud la diiwaan geliyena waxay ahaayeen isbitaalada ay qabteen 333. inta hadda isbitaalada ku harsan waxay marayaan 142 oo maaragtay 61 ay ku jiraan isbitaal Madiina, 35 ay ku jiraan isbitaal Rajab Tayyip Erdogan Digfer. qaarkood ayaa maaragtay xogaa xaaladooda ay adag tahay. maanta waxaa qorshaysneed in diyaarad qaado 4 qof oo ambulance ah inay Turkiga soo diraan, oo 4 qof oo maaragtay ugu daran oo jiifa isbitaal Rajab Tayyip Erdogan inay qaadaan qorshaysneed. diyaaraddii dib ay u dhacday maanta. ogolaanshaha soo maridda hawada Ethiopia ayaa xogaa kasoo dib dhacay sida naloo sheegay. marka waxay kusoo aadi lahayd xilli habeen ah haddii ay soo baxdo. marka saa darteed dib ay u dhacday, berito ayay imaanaysaa diyaaraddaas. 4 qof ayaana u qorshaysan inay qaado oo isbitaal Rajab Tayyip Erdogan yaallo. 4 qofna waxaa go-aamiyey oo u dalba diyaaradda maaragtay isbitaalka iyo maamulka caafimaadka. guud ahaan wasaaradda iyo maaragtay guddiga gurmadkaba iyo dowladda guud ahaan waxay dalbadeen dhakhaatiir ayay ka dalbadeen dowladda saaxiibo ah. dhakhaatiirta ugu horeysana diyaaraddan ayay ahayd inay ku imaadaan oo maanta imaan lahayd laakiin dib u dhacday. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa dhakhaatiirta aan u baahannahay ama nagu yar inay dhaqsi noo soo gaari doonaan. dhaawacyada xaaladooda ay adag tahayna si dhaqso ah wax looga qaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo. sidoo kale shirka waxaa ka soo baxay qodobo aada u muhiim ah. shirka wasaaradda maanta gudaheeda ay yeelatay qodobo aada muhiim ah ayaa ka soo baxay. waxaa ka mid ahaa in la xoojiyo kaalinta guddiga maaragtay gurmadka caafimaadka degdega ah ay u magacowda wasaaradda. runtii guddigaasi ayadoo loo magacaabay in ay wax ka qabtaan baahiyaha caafimaadka ee ka jira deegaanada la xoreeyo iyo dhaawacyada iyo ciidamada soo gaara inay wax ka qabtaan ayadoo loo magacaabay ayaa ay la kulmeen qaraxyadii ka dhacay Zobe ay la kulmeen. kaalin weynna way ka geysteen gurmashada. shirkeena marka waxaa ka soo baxay in la xoojiyo call centerada hadda la furay isbitaal Banaadir ee ka furan in la xoojiyo. sidoo kale waxaa la dhisay guddi tabarucaad ka aruuriyo shaqaalaha wasaaradda oo qayb ka noqdo gurmadka ayaa la dhisay. sidoo kale shirka wasaaradda waxaa ka soo baxay in shir lala qaato muxuu ahaa in shir lasugu yeero directorska isbitaalada, agaasimayaasha isbitaalada iyo hay-adda Bisha Cas iyo wasaaradda inay shir yeeshaan iyo dhakhaatiirta ku xil dheer medical emergency-ga inay shir isugu yimaadaan. shirkaasna looga arinsado sidii loo midayn lahaa ambalaasyada ka howlgalaya meelaha ay wax ka dhacaan iyo sidoo kale shaqaalaha u tababaran ee meelahaas ka howlgalaya gurmadka u sameynaya sidii loo tababari lahaa loona midayn lahaa inay ka wada tashadaan. maaragtay shirkaas lagu go-aamiyo awoodahana la mideeyo iyo sidoo kale in maxay ahayd tababar joogto ah loo sameeyo shaqaalaha gurmadka sameynaya meelaha ay wax ka dhacaan. tababarro in loo sameeyo shirweyne noocaas ah inay isugu yimaadaan wasaaradda caafimaadka inay isugu yeerto qaybaha kale ee private-ka ah ee ka qayb qaadan kara oo ay ugu horeeyaan isbitaalada iyo dhakhaatiirta iyo hay-adda Bisha Cas iyo sidoo kale ambalaasyada gaarka loo leeyahay sida Aamin ambulance oo kale inay shir isugu yimaadaan. arrintaasna hadda kadib ay kasoo baxdo
rapid response team oo degdeg ugu jawaab celiya wax kasta oo dhaca. Ayadoo sidoo kale wasaaradda amnigana loogu yeeri doono shirkaas si hay-adaha amniga ay u hubiyaan marka hore shaqaalahaasi inta aysan gelin meesha wax ka dhacaan amnigeeda in la xaqiijiyo lagala hadli doono, iyo sidoo kale sidii shaqaalaha loogu fududeyn lahaa inay gargaar degdeg ah u fidiyaan dadka meeshaas ay wax kasoo gaarto. waxaa sidoo kale waxaan shacabka ugu baaqaynaa in ay ka fogaadaan inay si degdeg ah ay u gaaraan meelaha ay wax ka dhacaan, oo ay ka warsugaan keliyana ma aragtay looga dambeeyo tiimamka loo tababaro in arrintaas ay wax ka qabtaan iyo hay-adaha amniga keliya in looga dambeeyo. waxaan sidoo kale ugu mahad celinaynaa isbitaalada inay aqbaleen baaqeenii ahaa in si shuruud la-aan ah lagu daaweeyo cid walba oo qaraxyadaas ay wax kasoo gaarto, dhaqaale iyo lacagana aan lagu xirin. baaqeenii ahaa inay aqbaleen, waan ugu mahad celinaynaa. waxaan ka codsanaynaa inay sii joogteeyaan oo dadka dhibaatadaas ay soo gaarto inaan wax shuruud ah oo lacageed aan lagu xirin. waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa shirkadaha dhaqaalaha ugu deeqay dadkii dhibaatada ay kasoo gaartay dhibaatadaas musiibadaas iyo qaraxyadaas ay dhibaatada kasoo gaartay. hay-adaha iyo shirkadaha dhaqaalaha ugu deeqay ayaan u mahad celinaynaa. ay ugu horeeyaan shirkadaha Dahabshiil Group iyo Hormuud Foundation iyo Salaam Hormuud Foundation iyo Beko oo ilaa hadda dhaqaalo fiican ku deeqay, ayagana u mahad celinaynaa. waxaan ugu baaqaynaa shacabka inay sii wadaan ay joogteeyaan kaalmada iyo garab istaaga ay u fidinayaan dadkii dhibaatada ay soo gaartay. runtii waxay ahayd musiibo qaran ay ahayd, dad badanna ehelkooda ay ku waayeen, dad badanna ay maaragtay ku dhaawacmeen, dad badanna hantidooda ay ku waayeen. marka gurmad qaran ayaa maaragtay waajibna u ah inaan u sameyno. marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan muxuu ahaa sidii lagu taakuleyn lahaa dadka dhibaatada ay soo gaartay. waxaan sidoo kale ugu baaqayaa ganacsatada iyo maaragtay cid kaste oo ka qayb qaadan karto in aan xoojino isbitaalladeena infrastructure-kooda inaan xoojino inay ka qayb qaataan, sida matalan isbitaal Madiina oo trauma managementiga aad loogu tiirsan yahay in loo dhiso maaragtay trauma center in loo dhiso iyo ICU in loo dhiso, in aan xooga saarno oo shacab iyo wasaaradba aan ka wada qayb qaadano iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay intaba. waxaan kusoo gabagabeynayaa in maxay ahayd aan ugu baaqo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo shaqaalaha muxuu ah wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan in ay garab istaag buuxa ay u fidiyaan dadka dhibaatada ay soo gaartay qaraxyadaasi ku dhibaatoobay. aad baa u mahadsantihiin.